بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال أحاديثتا runtii qofka muslimka ah markuu arko saameynta ku yeelanaysa oo aad iyo aad naftiisa ugu baqayo waxa kamid ah inuu nabiga kaleey salaatu wasalaam isagoo saxaabadiisa u sheekeynaya ama xadiiskan u sheegaya aw nabiga kaleey salaatu wasalaam waxaan ogahay oo qiyaamaha imaan doona dad wata acmaal aad u waaweyn oo khayr iyo saalixaad iyo wanaag ah acmaashaas nabigu wuxuu sheegay kaleey salaatu wasalaam buuraha waaweyn way ka sii waaweyn yihiin dabeetana markay yimaadaan oo ilaahay ag yimaadaan subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu ka dhigayaa habaa'an manhuuran boodh la afuufay oo hawada la kala raaciyay bay noqonayaan waxaan wax anfaca lahayn qofkii soo sameeyey waxba ugu fadhiin ilaahay agtiisa laga nacay oo laga soo tuuray ayay noqonayaan saxaabadu arrinta aad bay ula yaabeen dad la leeyahay acmaal buuraha ka waaweyn bay wataan haddana la leeyahay acmaashii waxba u qaban mayso oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wajigu kaga dhufanaya markaasay rasuulka ilaahay dadkaa noo sifee tilmaantooda noo sheeg si aanaan ugu kadsoomin oo annaguna aanan uga mid noqonin ayaga annagoon garanahayn markaasaa nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam dadkaasi idinka mid yihiin luqadiinay ku hadlaan salaaday idinla tukadaan bal iska daayay qiyaamuleylka iyo salaatuleylka u kacaan habeenkii laakiin xaggee looga yimi mataqaanaa waxay ahaayeen buu nabigu calayhi salaatu wasalaam dad markay waxa xaaraanta alla keli noqdaan ee la dhuuntaan ee meel cidlo ah joogaan xaaraanta aanu aabba yeelin ayay ahaayeen buu nabigu calayhi salaatu wasalaam